waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa kooxda la yidhaahdo quraaniyiin. Markaad maqasho kooxda quraaniyiin waxaa macquul ah inaad isweydiiso su'aalahan: maxay yihiin quraaniyiintu? Xaggee ka soo faracmeen? Waa maxay ujeedadoodu? Muxuu yahay xukunka islaamka ee kooxdan? Ma jiraan dad fikradan qaldan qaatay oo Soomaaliya? jawaabta su'aalahan iyo kuwa la midkaaba waxaynu kaga bogan doonaa barnaamijkeena soo socda. Maxay yihiin quraaniyiintu? Waa dad sheeganaya inay muslimiin yihiin, dafirayna xadiiska nebiga oo dhan, kuna tilmaamay nebigii Ilaahay soo dirsaday ee Maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa ruux qaladaad iyo gafaf ay ka dhici karaan oo aanu ahayn macsuum. Waxay sheegeen inay ku gaabsadeen kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, ayna baalmareen dhammaan kutubta shareecada Islaamka. Sidoo kale waxay iska leexiyeen kutubta tafaasiirta Qur-aanka, fiqiga Islaamiga ah iyo dhammaan kutubta noocay tahayba. Wixii aan ka ahayn Qur-aanka Kariimka waa siday sheeganayaan. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaanay haysan kitaabka Qur-aanka Kariimka ah. Ma haystaan mana qiimeeyaan. haddayba qiimo iyo qadarin u hayaan waxay raaci lahaayeen boqolka aayadood waxa sare u dhaafaya ee tilmaamaya in la raaco sunnada nebiga calayhi salaam. Kooxdan xagee ka soo farcameen? Fikirka kooxdan wuxuu bilaabmay waqti hore, gaar ahaan xilligii khawaarijta, iyagoo diiday xadadka diinta islaamka, gaar ahaan xadka sinada iyo guud ahaan axkaamta laga soo xigtay sunnada sugan ee nebiga. Culimmada islaamku kuwii hore iyo kuwan dambe way kasoo horjeedeen fikirkan baadida ah. Wuxuu yidhi imaamkii weynaa Jalaaludiin Suyuudi: ogaada Ilaahay ha idiin naxariistay ciddii diidda xadiiska nebiga sallallahu calayhi wasallam, ha ahaado qowl ama ficil, lehna shuruudihiisa asalka ee lagu yaqaano, waa gaaloobay, wuxuuna ka baxay xayndaabka islaamka, waxaana lala soo bixin doonaa yuhuud iyo kristaan ama ciddu alla doono oo gaalada ka mid ah. halkaas ayuu ka joogay imaamka weyn. fikirkan asalkiisu wuxuu kasoo jeedaa raafidada xag jirka ah. raafidaduna waa koox ka mid ah shiicada oo guud ahaanba diidda xadiiska nebiga kuna gaabsaday qur-aanka, sababtuna waa ictiqaad baadil ah oo ay rumaysteen. qolo ka mid ah raafida waxay ku tageen in nebinimada uu xaq u lahaa Cali bin Abi Taalib, oo uu malakul Jibriil nebinimada kula soo khaldamay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. qolo kalena waxay u arkeen in khilaafada uu xaq u lahaa Cali bin Abi Taalib, sidaa darteed waxay nacdaleen dhammaan saxaabadii khaliifnimada kaga horreysay. sidoo kale may seegin Cali oo isna way nacdaleen, iyagoo ku doodaya muxuu xaqiisa u dhacsan waayey. intaasoo qura bay u nacdaleen. sidaasuu ibliisna uga lumiyey waddadii saxda ahayd. allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. aayaddan waxaad arkaysaa inuu Ilaahay muuminiinta ugu madna sheeganayo in uu nafahooda kasoo dhex saaray rasuul ku akhriya aayaadkiisa. sidoo kale aayado badan ayaa iyaguna ina faray inaynu raacno sunnada, waxaana ka mid ah: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. aayadahan iyo kuwo kale oo fara badan ayaa ina faray inaynu raacno sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. laakiin xaqiiqo ahaan way noo caddaatay inay ka fogayeen qur-aanka laftiisa, waxayna lumiyeen naftoodii iyo ciddii raacdayba. kooxdan oo dabarkooda ayaa waayahan dib usoo istaadhay fikradoodii guracnaa. waxay fikradan guracan ka kulaalaan ninkii bilaabay fikradan oo la dhaho Axmed Khan, oo ku dhashay Hindiya kuna fasiray qur-aanka fikirkiisa. waxaa ku xigay nin uu dhashay Bakistaan oo lagu magacaabo Cabdillaahi Jibraalwi, oo ku markaday qaar ka mid ah xadiiska nebiga, kadibna inkiray gebi ahaanba xadiisyada suubanihiina. markaasuu qaatay fikradan qaldan oo uu ku koobnaado qur-aanka. yaa madax u ah kooxdan? xilli xaadirkan waxaa madax u ah kooxdan quraaniyiinta nin la yidhaahdo Axmed Sabxi Mansuur, oo si waadix ah u inkiray sunnada nebiga. ninkan oo u dhashay waddanka Masar, waxaa dhowr jeer lagu xidhay xabsiyada Masar markuu inkiray sunnada nebiga. imikana wuxuu ku nool yahay waddamada galbeedka. maqaal ay qortay Al-Carabiya waxay sheegtay inuu shirar ku qabtay Maraykanka, waxaana shirarkiisaas kasoo qayb galay oo saxaabada u tumay gabadh la yidhaahdo Amiina Waduud. oo waa tuma Amiina Waduud waa gabadh ku dhiiratay inay imaam ka noqoto masaajid ku yaalla New York. khudbad jimcana way ka jeedisay. hala yaabin inay gabadhan imaam ka noqotay masaajid, sababtoo ah reer galbeedka agtooda way ka siman yihiin ragga iyo dumarku. halkaa waxaa kaaga muuqdanaysa in wixii raggu qabto ay dumarkuna qaban karaan. inkastoo aanay ragga iyo dumarku sinayn xagga diimaha oo aanad arkayn gabadh kaniisad madax ka ah, haddana tani waa mid looga dan leeyay in lagu sumcad xumeeyo diinta islaamka. muuqaalo laga duubay ayaad ku arkaysaa iyadoo hormaliiga rag iyo dumar oo tujinaysa. waxaaban uga sheekeeyey shiico kuwan ay tujinayso, sababtoo ah waxay kala qayb qaadan karaan sumcad xumada diinta islaamka. waa tan Amiina Waduud. sidoo kale waxaa safka ku wada jira dumar iyo rag, iyadoo aan diin ahaan iyo sharci ahaan midna bannaanayn in ragga iyo dumarkooda tukadaan. sidoo kale dumarku way madax qaawan yihiin, timahana waxba kuma sitaan. kale diinta islaamku ma ogola inay gabadhi tujiso ragga.
waxaa kaloo ka qayb gashay shirka gabadh lagu magacaabo Irshaad Manji oo qiratay inay qoomuluud tahay. hogaamiyaha kooxdan Axmed Khan oo lagu yaqaano islaam nacayb iyo lacolaynta ka culimada xadiiska iyo tafsiirka ayaad arkaysaa cidda shirarkiisa ka qayb galaysa inay tahay dad ku caanbaxay nacaybka diinta islaamka iyo nabigeena Maxamed. muxuu yahay manhajka quraaniyiintu? kooxdan waxay inkireen tafsiirka quraanka, waxay kaloo dabirsan yihiin aayadaha quraanka sababta ay ku soo degeen oo lagu magacaabo asbaabul nusuul. waxay sidoo kale dafireen aqwaasha culimmada kuwa maanta iyo kuwii horeba sida saxaabadii, taabiciintii iyo taabicu taabiciintii iyo wixii ka dambeeyeyba. ma rumaysnayn aayadaha quraanka qaar ka mid ah la nasakhay xukunkoodii. kooxdan ma rumaysnayn xadiisku ka mid yahay islaamka, mana rumaysnayn waxii aan ka ahaynka quraanka. waxayna baalmareen waxyiga labaad ee sunnada rasuulka iyo xadiisul qudsiyada uu nebigu Allah ka soo warinayo. waxay sidoo kale kooxdan dadka ugu yeedhaan sharci aan kala saarayn gaalka iyo muslimka, waxayna dhaheen xorriyadda shakhsigu maaha ta lagu gelayo naarta, oo macnaheedu yahay qofka hadduu doono qoomuluud uu noqon karaa jannadan uu gelaya. kooxdan waxay nebiga ka aaminsan yihiin inaanu macsuum ahayn oo uu khaldami karo marka laga reebo xaaladda qur-aanku soo degaya oo keliya. si kale haddaynu u muujino, haddii nebiga war saxan oo ka sugan laga soo wariyo, agtooda kama waxyi ama amar uu ilaahay faray nebiga. waxay kaloo ku doodeen inaanay saxaabadu ahayn caadil, ay ku jiraan qaar munaafiqiina, iyadoo nasku tilmaamay inay kulligood cadaaladda ka siman yihiin. waa maxay xukunka islaamka ee kooxdan? xukunka islaamku iska cad yahay. qof kasta oo diida sunnada nebiga inuu ka baxay diinta islaamka. waxaa maragmadoona hadday qur-aanka ku camal fali lahaayeen inay weyneyn lahaayeen sunnada, laakiin waxay ka jaahil noqdeen wixii kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulkuba sheegeen. sidoo kale kooxahan iyo kuwa la midkaaba waxaa kasii warramay nebiga. muxuu yahay hadafkoodu? hadafkooda koowaad waa inay weeraraan diinta ilaahay, turaadna sunnada. ujeeddada labaad waa in loo sallaxo dadka muslimiinta inay ridoobaan oo ay ka baxaan diinta islaamka. sidaa awgeed xadkii riddadaba way diideen oo waxay qaateen inuu qofku xor u yahay diinta uu doono, inuu qaadan karo oo uu kristan ama yuhuudi noqon karo. ujeeddada saddexaad waa in la kala fogeeyo diinta iyo dowladda, sida reer galbeedka oo calmaaniyiin la isugu baxo, diintana la yidhaahdo masaajidka ku koobnaato. ujeeddada afraad ee ay u ordayaan waa in la daciifiyo ummadda islaamka, kutubtoodana laga saaro wax kastoo ay gaaladu necab tahay, sida jihaadka, dhaxalka xaasaska badan, xadka sinada, khamriga, tuugnimada, xuduudda riddada, khilaafo islaamiya iyo kuwo kaloo aynan halkan kusoo koobi karin. ujeeddada shanaad waa in dadka loo baneeyo fasahaadka, khamriga, sinada, riddada, qoomuluudnimada iyo heesaha. laakiin islaamku waa kii baaqiya, iyaguna cadho iyo baadi ayuu dhimanayaan. ma jiraan dad fikiradan qaatay oo Soomaaliya? dad badan oo Soomaaliya qaatay fikiradan oo uu ka mid yahay Cali Raage iyo kuwo kale, kuna soo galay saaxada bulshada shaardiimeed. Cali Raage oo hogaamiyaha Soomaalida sheegatay inay yihiin quraaniyiin, waana sababta lagu bixiyay raagiyiin. kooxdan waxay aaminsan yihiin inay heesu yihiin muqaddas, ciddii aan heesaa dhegaysanna ay qalbiga ka bukaan. waxay isdhaheen fanaaniinta Soomaalida ee heesta gabaad ka dhigta dadkaas oo ah muslimiin khalad iyo dembi ku dhacay, ayaa isla markiiba fahmay inay yihiin dabadhilifyo loo adeegsanay inay weeraraan diinta islaamka iyo dhaqanka shariifka ee diinteenna, wayna ku gacan seedheen. haddaynu nahay Soomaalida muslimka, waynu naqaanaa culimmada iyo cidda loo daba fadhiisto diinta, markaaynu iska jirno garhwadaadlayaasha iyo kuwa xidhan shaardiimeedka.